waxaan keliya u mahadnaqayaa beesha Idla Biciide sida sharafta badan iyo karaamada badan ee ay u garab istaageen hadafkii xukuumadda ee ahayd in military reform la sameeyo oo dadka shacabka hubka laga wareejiyo qaranka lagu wareejiyo waxaan kaloo halkan ka oranayaa degmadan Ceelaf Weyn oo in badan laygu maago waxba uma tiraahdid mudane wasiirayaal xukuumaddu halkan fadhisa qodob baan haystaa annaga xukuumadihii iska dambeeyay oo dhan oo wadada weyn qurux badan noo dhisay qaranka u shaqeeyay waxaanu la'anahay institution weyn oo qaranku leeyahay oo ay dawladuhu dhiseen ilaa hadda ma hayno kelmadda waxay ugu noqotay nabar fariintaana waa noo qaadi doontaan oo saaxiibkay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi madaxweynaha waad naga gaarsiin doontaan gaar ahaan baahida degmadan ugu weyn ay qabtaa waxa weeye waa dhakhtarka weyn oo aad moodo dukaan yar oo meel laga furay oo weli community ku dhisatay arrinka waxa kaloo jira biyaha oo ilaa hadda ilad laga soo raro aan waxba aan biyo badan jirin iyagana waxa xil saaran oo aan hoosta ka xariiqayaa war wax walba waa laynoo qaban lahaaye nabadii baynu fadhiisin weynay ee nabadda aynu xil iska saarno oo wafdiga inoo jooga maanta haynoo noqdo wafdiga inoogu dambeeyay